نظام من فضلكم نظام نتيجة عن نتيجة إذا شاكو مركن أو سي رسمي نتيجة وريق اللباد oo ay ku tartamayeen 3 musharax waxay noqotay sida soo socota musharax madaxweyne mudane shariif sheekh axmed wuxuu helay 46 cod mudane musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu helay 97 mudane maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu helay 184 saadaradeed raalli waxaan u gudbaynaa wareegga saddexaad meeshiina fadhiya waxaa markaa ku tartami doona 2 musharax sida dastuurka uu qabo mudane warqadaha la bixi wax xumaaday ma jiraan hal baaqatay mooyaane 327 cod baa si sax noqotay waxaa wareegga saddexaad ku tartami doona mudane musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maxamed cabdulaahi farmaajo labadaasi marka xogeynta ha diyaariso warqadaha oo hana soo dedejiso من فضلكم ماشينا جوجا وريق سدحاد أن توصل سميننا من فضلكم ماشينا فديا وريق سدحاد أن سمينا نظام مدني النظام هنودم بيش شكلنا ولا لي رالي هذا زكريا حلوان نقرا هذا فريستا ميشينا من فضلكم فريستا بلا سيدا دتك سيدا داف نظام عن اسمقلنا من فضلكم اسمقلنا دتكينا ميش ولا تان كتاقا يا كوان نركب مدوم حياه كتاقا ميش كل هذا ميش مدن يا رالي هذا عن اسمقلنا waxaa mahadsan jenaraal waad mahadsantahay waxaan u yeerayaa inuu kelmad noo jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud falyatafadal بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya beesha caalamka ee joogta meesha safaaradaha diblomaasiyiinta shacabka Soomaaliyeed ee na daawanayo ee telefishinada iyo shaashadaha hortooda fadhiyo dhammaan waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah
waxaan leeyahay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo wadda dheer oo maxaanku idhahdaa dimuqraadiyadda xaggeeda loo qaaday oo si fiican u socotay ayaa maanta halkan ku soo gabagabowday howl aad iyo aad u fiican ayaa dadka Soomaaliyeed soo qabteen waddadii dimuqraadiyadda ayaanan soo qaadnay meeshii aan rabnay inayna geyso oo ah dalkan taladiisa in si dimuqraadi ah la isku weydaarsado ayayna soo gaarsiisay waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo walaalkay Maxamed maan Farmaajo oo noqonaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa walaalkay Farmaajo inaan dhaho hambalyo xilka Allah kugu guuleeyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay la garab istaago madaxweynaha cusub dalkuna horaha u socdo dimuqraadiyadduna horaha u socoto Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato dimuqraadiyadda iyo dawladnimada Soomaaliya ha dhaqan gasho guulaysta adikana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله walaalayaal barnaamijka ma dhamaanin buuqa naga daaya dhaartii baa dhiman weli brotokoolka ma dhamaanin buuqa iga daaya inta meesha tagana gadaal iga taga gadaal u taga kulligiina go back gadaal u taga gadaal wareelo maxkamadda sare loo yeero iga fogaada kale kitaabka walaalayaal faraaqana si Allahu nabi calaykum بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه وسلم مدنيال dhaartani waa dhaar dastuuriya dastuurka waajibiyey in lagu dhilma la mariyo qof kasta oo qabanaya xilka madaxweynenimada dhaartu waxay ka kooban tahay
afar dhidib oo aasaasiya qof dhaaranaya cid loo dhaaranayo wax lagu dhaaranayo iyo odhaahda amaba siiqada waxaa dhaaranaya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah wuxuu ku dhaaranayaa dastuurka ilaahay waxaad iga daba odhanaysaa dhaartan aan ku akhriyi doono waxaad tidhahdaa waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagana xilka u fududeeyo inana aynu noqonno ummad adeecda soomaalina ay guulaysato بسم الله الحمد لله dadka Soomaaliyeed dhamaan mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya ku nool guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira iyo qurba joogta iyo dhammaan codsiga ugu dambeeya ee halkan aan galabtay caawa uga jeedinay waxay tahay in si dhab ah oo aad iyo aad u xoog badan oo hagar la'aan ah in loola shaqeeyo madaxweynaha cusub si uu waajibkiisa u guto dalkeennuna uu hore ugu sii socdo haddii aan la yidhaah mar kale maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha cusub waxaan leeyahay hambalyo dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى مهله وما أنت كسوك هاي كيني وحان أمهد علنا إياه حلي بانا الشرفت له oo isbedel doonka ah kuwa codkoodii isiiyay iyo kuwaan codkoodii isiinin maanta xildhibaanada federaalka Soomaaliyeed waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka Soomaaliyeed guushaan waxaa leh dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan guushaan waa bilawgii midnimada Soomaaliyeed waa bilawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka Soomaaliyeed waa bilawgii dimuqraadiyadda Soomaaliyeed waa bilawgii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan ballan halkan idinkaga qaadayaa waxa la yidhaahdo core value ama aasaas ah inaan ammaanada dalkaanu leeyahay aan u xafido inaan cadaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino aan caawinno insha Allah waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaan dalka u jeediyo khudbad inta taas laga gaarayo waa mahadsantihiin Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato Soomaali ha midowdo waa mahadsantihiin walaalayaal waxaan rabaa aan iloobay raaliga ahaada inaan u mahad celiyo murashaxiintii oo dhan oo sanad muddo laga joogo soo shaqaynayay waxaan rabaa si gaar ahaaneed inaan ugu mahad celiyo madaxweynahaygii hore Shariif Sheekh Axmed waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaheena qaranka oo si nabada oo wanaagsan oo smooth ah ku wareejiyay xilka madaxweyne waa mahadsan tahay الله كحفظه صومالي الله حفظه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدن حوينة
guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye ku-xigeenada xildhibaanada sharafta leh wasiirrada iyo saraakiisha dhammaan ka soo qaybgalayaasha bahda saxaafadda maanta waa maalin weyn ficlan waa maalin weyn geedi socodkii maxay ahaato doorashooyinka waxay ku soo dhammaadeen madaxweyne farmaajo inuu ku guulaysto maanta waa u hambalyaynaynaa waxaana u rajaynaynaa guul ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa inay waa cusub gasho walaalkay madaxweyne xasan sheekhna waa mahadsan yahay inuu maanta si furfuran oo farxad leh u wareejiyey xilkii waana la shaqay doonaa waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanka toddobaad ee aqaabka wadajirka ah waa noo xiran yahay marka calaa barakati illaah